السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkaygii walaashayda daacad ahay kusoo dhawaw dhiirigelin ku saabsan daacadnimada qaybteedii labaad. haddii aad tahay qof daacad oo naxariis badan, waxaad arkaysaa dad badan oo ku qiyaamayaan. ahaw mid daacad ah si kastay xaaladu tahay. ma og tahay dadka qaar kuguma imaanayaan inay ku jeclaadaan, waxay kuugu imaanayaan si ay ku isticmaalaan. uma imaadaan si farxad kuugu keeni lahaayeen, waxay u imaanayaan siday kaaga qaadi lahaayeen. kuma arkayaan qof ahaan, waxay ku arkayaan fursad ahaan. aamin, halkaas aniga waan taagnaa. kuwan waa dadka qaarkood aan ku jeclayn adiga. waxay kugu jecel yihiin waxay adiga kaa qaadan karaan. kuma ahan daacad, waxay daacad u yihiin wax adiga ay kaa helayaan. si kastoo ay dadku yihiin, si kastay xaaladu tahay, sii wad wanaagga, wax samaynta qaybta. xasuusnow, tani waxay u dhaxaysaa adiga iyo Allah.